السلام عليكم دمان أصحابتك وحيران جنالك مهداي ميديا كسو دوادا مهداي ميديا labada Kuuriya oo hubka iyo ilaalada ka qaadaya magaalada xabad joojinta Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa ku heshiiyay inay hubka iyo ilaalada ka saaraan magaalada xabad joojinta taas oo ku taal xadkooda magaalada oo sidoo kale loo yaqaan aaga ammaanka laba geesoodka ah ama GSA ayaa ah meesha kali ah ee ciidamada labada Kuuriya ay isku horfadhiyaan ujeedada arintaas laga leeyahay ayaa ah in lagu dhimo xiisada labada dal u dhaxaysa horaantii bishan labada dhinacba waxay bilaabeen in ay ka saaraan dhulka 800,000 oo miino oo xadka lagu aasay labada Kuuriya iyo ciidamada qaramada midoobay ee Mareykanku hogaaminayo ayaa ku heshiiyay tallaabooyin ay hubka iyo fariisimada military kaga la baxayaan aaga xabad joojinta meesha lagu gaaro 25 bishan aynu ku guda jirno October sanada 2018 iyo labada maalmood ee ku xigta saddexda dhinac ayaana sameyn doona howlgallo xaqiijin ah sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed